Sweden haddaba warbixinta ah waxaa inoo sii faahfaahinaya waryaheena inooga soo warama Sweden Cabdulqaadir Salwa. caasimadda dalka Sweden ee magaalada Stockholm waxaa si tiran loogu soo dhaweeyay xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliyeed xildhibaanad Aamino Mohamed Mursal Aamino Elay xafladii waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliyeed iyadoo qaab Soomaali weyn loo soo dhaweeyay munaasabadiina sidan ay u dhacday. شرف يوين نوع إن ولاشين آمنة محمد مرسل والله يقانا آمنة إلاي آمنة إلاي إن اللي يرادو شرف إيه وتاي وينكو فانتا وأنا مقعان والله يقان وأنا حجرته واحد وأنا أنا وجدته مركا وحا شرف نوع أنا عاون على جوكتي وأنا نو تيمت هذه هذا الغفر أحسن نهاي سود دوا كلنا نهاي ماشى وحا السوي يمد عاوة لبنتي ستوكهولم بالحقيقة مركا رتكو الشيخ dadka meesha isugu yimid Soomaali weyn oo dhan isugu jiraan reer koonfur galbeed kaliya ma ahan laakiin Soomaali oo dhan maadaama heer federaal heer qaran ah tahay heer qaran ku soo dhaweynay dadka meesha jooga dhan nooc walba isugu jiraan aqoon-yahanadii ku jirtay walaalka uu sheegay culimada adduunka ku jira ganacsadii ku jirta professoriintii ku jiraan uqaashi salaadiintii ku jiraan waxaan ku leenahay Aamina soo dhawo markii waad iyo markii labaad aadan ugu faraxsanahay inaan noo timaado waqtiga Allahi wa barakatuhu sin salaami dhamaantiin Soomaaliyiin sokeey walaal anoo sin shal reebana dhawaada aasatan wali sagaare han dhawaayay xildhibaanadana marna role modelkay siyaasadda Aamino Elay Aamino Mursal leeray laakiin Aamino Elay ka magac dheertay meel raayis Soomaalidan badan shay maynin gordaas Elay una dhanbari Elay namadan eedan ka faraxsana wali bawaluna eed injeeno inana neero Elay hadawaayo ku bacda wali in mahadnagay martada ku qeyb galay xafladun sharafta badan wallahi ka dhawaayay xildhibaanadana qaasatan reer Stockholm qaasatan reer koonfur galbeed oo gololatan ay dhigaydan mahadsiin bacdul mahadnag meel raayis adii bareer qurbi at gordaas hooyooyinka Soomaaliyeed qof walba inta roog wali isleeyahan marlayse wadankii ka nagoy meelun waleed qof walba gordeen gabar walba Soomaali ama hooyo eedanka dhibaataysan wali mar walba kaamiyaasay inay heli jeelaha dalkiisha u nabad awlaaditiye wadato meelase torafaadkiyada hadda ku nool ku bad ya mar walba eed meel raayis injeelo maskala damashay taasay madilaha ku taba dhiniga siyaasadda hadii la ero magalka iyo wala badana wala qasaw oo dalkan ku fadhiyo way sidii wala bo bilaanto wala yasay laakiin libeelto ku gaabanaado loo fiidiya leerogda wala waxa bahal niyaso on hadda wala lanaha bilaanto hukunka halin dhiibay bal magalka noogay una halni barooyo saasa siinlene
hal fariinga wada halka fariinga ee wali buahan madaxweynaha wali noo deer siyaasi horta eedan ka faraxsanna in isugu noo hogaami aan madi hor mucaaradka ku mid tahay jari laakiin mar hore mucaafad nagadi ma sheegno ugu goor laakiin wali bua wala aragdeeda aan mucaafad anagnagadayn wali bua qofka ogta fikirku aaminsanaado koro qofka wali ku aaminsanto wali waxa isku bedelo koro wali ada aaminsanto shaleeday wali bua sababta عروليس هذا ما كجرت ورشة هذا ما كجرت وليس آمن سني هذا مؤشيدي مركز سدي لوك في لاي ما يسوق فايلنا قدي ولا بوها ليسوا لكين دور سدي معناها لكين سدي هذا لكي على ما يسوق فايلنا قدي لنا إني مسجد نوجا مينو إذا كم هاد سني فرنتك على دنو دير سياسة ولا بوها وضيال كنوجا أنا دعوشين كبلانتي كوري كده أنتي تدخل على كديرك إذا ما تسندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii caawi aad iyo aad aan u faraxsanahay waa habeen weyn waay runtii mataqaana odayaasha ama mataqaana dhalinyarada cuslaatay oo halkaan kasoo qayb gashanay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay oo ugu horeeya profesorka iyo dumaashiga Cabdirasaaq runtii Cabdirasaaq muxuu ahaa ii sheegay waa maqan tahay walaashay Sucaad Cabdirasaaq aan rabaa waxayna iskiin baro Cabdirasaaq wuxuu qabay gabadhii ugu horeeyay hoosteska Soomaaliya Sucaad Maxamed oo ka soo jeedo culamo alle oo mataqaana aad iyo aad loo ixtiraafo waa gabar geesiyada Sucaad oo muxuu ahaa ii sheegay soo xasuustaan diyaaradii Soomaaliya Airline waa gabadhii rabay ninka inuu mataqaana xabad rido gabadhii qoriga ka qaadatay oo isku mataqaana isku xirto waagaas xabad aan la aqoonin horta xaggaas mataqaana qofkaas la hor dacaawo marka Cabdirasaaq Sucaad way ku qasbantahay iyada fahmay ka si laakiin waxooga afdabara ay ku barto marka runtii aad iyo aad u faraxsanahay waxaan rabaa halkaan wixii dhiila waa la sheegay runtii markii hore waa iska faraxsanahay haddana waa faraxsanahay laakiin xoogaa maadaama hooyo aan ahay xoogaa emotional ayaan noqday runtii waxaa aad iyo aad ii damqisay walaalkay Ciise mataqaana fariintu halkaan uu ka sheegay tuhunkaas markii hore waajib waa ogaa aniga laakiin runtii xaqiiqda markii laga hadlaayo waxaan rabaa mar raba inaan muxuu ahaa ii sheegay dawladda federaalka uu hogaaminayo xafidulaahi xasan sheekh maxamuud aan ku dhileeceeyo ama muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha waxyaabaha mataqaana reer Sweden la dabacsan yahay ama waxyaabaha hadda socdo ama hanta socoto haddii aan dhihi lahaa aniga marka wadankan muxuu ahaa ii sheegay saa ula socotaanba dadkan oo mataqaana wadankan Sweden aad iyo aad ugu faraxsanahay dawladda halkaan ugu mahad celinaya soo dhaweynta mataqaana soo dhaweysay iyo sidii muxuu ahaa ii sheegay dadkii ugu horeeyay oo mataqaana wadanka soo galay qaarkood waxa laga yaabaa inay joogaan hataa waagi civil war ka hor inay wadankan imaadeen marka tixgelin gooni ay leeyihiin dawladda Sweden sidii soo dhaweysay aad iyo aad u soo dhaweynaya marka dhibaatada hadda ugu weyn oo mataqaana dawladda iyo jaaliyada kala haystaa waxay tahay meesha dawladda Sweden haddii wax toos ay jirto baarlamaanka la keeni lahaa oo heer xukuumadda la keeni lahaa marka haweentu waxay dhahdaan uli horome marka waxaa jira mataqaana dad kale oo jooyiste ah oo wadanka Sweden ba joogo inay mataqaana ay la xiriir ay la sameysteen hadda aniga waxaan la socdaa hadda markaan soo galay wadanka aan soo dhoofayay rag Swedish ah ayay report waxay kula kulmayeen mataqaana dad oo mas'uuliyiin aan rabno wacdi halka aan ka sheego marka runtaas fariintaas waa qaadaya waan igu qaaliyay tahay
حقو صورة ولا قبسن كراوي نيكو صدق سر هالكان جوال واتسن وصل جوجي مركب نلوش إمضاء عرورتي هالكان وجوته هدي الصومالي لا تحيل انتو كلا قبسن أيوة هدي الواحد وعبد القادر سلو ودنك سويدن قارهان مقال